بسم الله الرحمن الرحيم. أولا waxaan salaamayaa gudoomiyaha gobolka gudoomiye Madaale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda iyo gudoomiyaasha degmooyinka qaybta galbeed ugu horeeyo korneelka saaxiibkay oo soo wada shaqeynoo ah degmadiisa martaan ku nahay Xundubey saraakiisha booliiska ugu horeeya siinoo taliya qaybta galbeed ah gudoomiye ku-xigeenada amniga iyo siyaasadda kuwa bulshada gudoomiye waaxidada ururka dhalinyarada ee gobolka Banaadir ee qaybta galbeed laamaha waaxaha dhalinyarada dhammaantiin waa salaamintii markale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad ayaan anigu galabta u farxay markaan dharkeelay oo sidaa u qurux badan saameyn ayay ugu leedahay aniga dharkeelay waxay ka mid tahay waagan dhalinyarada ahaa 10 sano ka hor meelii aan ka shaqeeyo ka ahaa taliyaha degmada dharkeelay haddaan uga sheekeynayay gudoomiyaha maalintii ugu horreysay oo halkaan imid anigoo 96 hal maalina imid oo wadaad aan qaraabanaho adeerkay oo ku dhintay suuqleef meelaheeda taxsiin baa markii labaad oo imaado waxay ahayd 2012 anigoo tagay degmada 10 sano ka hor waa garan kartaa meel aan muuligada maalin baan basoorada oo wataan degmada waxaan ugu imid gudoomiye la dhigi jiray inuu nool yahay inuu dhinta garamaayo Macalin Cabdulle halkaa waan ka shaqo bilownay degmada isbaarooyin baa yaalay markaas bal shabaabkan la tacaalaynay qof ugu horreeyay oo shabaabaan halkan ka qabanay aniga oo 2 wiil aan u maleynay yar degmada iga dambeeyay oo dhintay oo la dhigi jiray Allah u naxariistay liiray taliyana mas'uul degmada noqday oo askarti aan qoray kamid ahaa baa waxaan ka qabanay halkan taliyii booliiska waqtigaas joogay baan geynay duruufaha waqtigaa jiray siday ahaayeen sidaan bal ku soo wuxuu yiri anaga shabaab ma qabanay niyo inaga wad waa ka qaadnay halkan waxaan la tagay meesha la yiraahdo dabakaayamadu oo biilku ka bixi jiray gaari biil aan san sugayaan meesha ugu dambaysa kala raacay biilka lamara fara ku digay gaari kala raacay godka julucu waxaan ku geeyay ninkii basoorad ana wada oo gaari gadaal ka saar bajaajina ma jirin gaarina ma jirin waxaan taa uga goleeyahay ujeedka ugu tahay gudoomiye waaxeedka $400 qaadanaya iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada lacagta qaadanaya iyo gudoomiye laameedka lacagta qaadanaya iyo gudoomiyaha degmada lacagta qaadanaya dalkan halkaas uu ka yimid macna runtii duruuftaas adagu ka yimid aad garan kartaan intay la eg tahay degmadaan oo 5 isbaar ee 6 isbaar ay taalo ka yimid maantay amniga degmada dharkeelay waxa ka shaqeeya hadii wax ka shaqeynay in ka badan dhowr iyo 10 baabuur oo kala duwan oo police leh oo degmada leh oo nabasguud leh oo xuduud leh oo ciidan special ah oo degmooyinka qaar degan oo heer federaal leh macnaheedu waxay tahay amnigi wuxuu marayaa meeshii ugu habboonayd laakiin waxaan weli la joogaa baraarug iyo isku xirnaantii inay yar tahay macnaha ujeedada meeshan la ka rabo waxay tahay amniga inaan ka shaqeyno inaan baraaruga la badiyo oo wada shaqeynta maamulka degmada iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo taliyaasha saldhigyada in la mideeyo oo ay noqdaan dad hal hadafooda leh dadku markay hal hadafooda leeyihiin waa la wada guuleysanayaa oo subaxii loo soo wada kaco waxaan rabaa maanta laga bilaabo inay dhammaato warkii ahaa taliyaha booliiska lama shaqeynayo gudoomiyaha degmadan ka dacwooday koonfurka dhaqankaas lagu yaqaanayo markii xafiisyada la tagana waxaa la yiraahdaa taliyow gudoomiyaha degmadii saldhigii buu diidan yahay oo maaragtay gudoomiyaha degmadii warqadda maxkamadda uu diidan yahay gudoomiyaha gobolka markuu gudoomiye u tago wuxuu leeyahay taliyihii saldhiga ila shaqeymaayo wuxuu shaqeeyaa lama arko habeenii maalin ma yimaado waxaa la rabaa warka gudoomiyaha loo sheego oo gooni lagu sheego anigana gooni lagu sheego in halkan loo sheego qofkii qaladka iska leh inuu qaataan diyaar u nahay bal ka qayb guud ahaan booliiska waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno gobolka Banaadir lana shaqeyno shacabka dhaxdeena inaan kalsooni ka abuurno kadibna inaan shacabka Soomaaliyeed la shaqeyno si loo gaaro hadafka aan leenahay runtii baraarug iyo shacabka Soomaaliyeed marayaan maanta aan uga faa'iideysanahay fursadan waxaa dhacday maalmo ka hor in dadku ay soo sheegayaan qofka shabaabka markay arkaan oo dhahaan 911 inta wacaan 2 qof oo ka shakinay halkaas joogto oo qoryo wata maamulka degmada Daynile maalin soo sheegano la soo qabtay kuwa qoryo wata
ciidanka booliiska 999 soo waceen oo la soo qabtay sidoo kale shacabka baraarug fiican ayaa ka muuqda waxaana rajaynaynaa waa intaas oo kale sii dhawaano waxaana la ka rabaa haddaad tihiin qaybta galbeed inaad 2 jibaartaan dadaalkiinaan 3 jibaartaan oo 4 jibaartaan ugu dambeyntii waxaan rabaa midna gudoomiye inaan ku sheego 2533 dhac kiis ayaa qabteen qaybaha booliiska gobolka Banaadir sanadkii la soo dhaafay 115 kiis oo kamid ah kala bar ay u dhowdahay waa qaybta galbeed kala bar in ku dhow qaybta galbeed ee dhacdooyinkaas ka dhaceen waxa way qaybta galbeed iyo magaalada inteeda kale inay isku dambi tahay macnaheedu waxay tahay inay ka baahi badan tahay waxa la rabaa marka inaad u dhugma lahaato gudoomiyaasha degmooyinka iyo kuwa ciidanka intaba inaad u dhugma lahaatay in qaybta galbeed ay ka dhib badan tahay magaalada inteeda kale maadaama ay kana bulsho badan tahay servicekii dawladnimadana ay ka fog tahay waxa la rabaa inay ka mushaar bataan inay ka muhiimad bataan in gudoomiyaha laameedka iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada iyo gudoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhigaba ahmiyad gooni inay ka yeeshaan qaybta inteeda kale inay ka yeeshaan ahmiyad gooni taasna waxaan ku xasuusinayaa iyadoo rib badan oo kula soo wadaagi doona gudoomiye insha Allah taala ka booliis ahaan maanta laga bilaabo waxaan diyaar u nahay inaan wada shaqeyno xafiiska booliiska qaybta guudna waa idin furayahay shacabka Soomaaliyeed oo dhan waa uu furayahay lambarkayga personally ka waa shakhsiga waa la soo xiriiri kartaan 991 waa wici kartaan wax kasta oo ku saabsan booliiska gobolka Banaadir aad iyo aad u mahadsantihiin